هاي dadweynaha Soomaaliyeed maanta waa kuwan ka soo horjeeda gumaysiga iyo inta ya هاي ولادي ولادي صباح وكان رقي جبهة SBM أساسين وكنا بروا meeshan ayaa la ishor joogaa dadka shacabka ah iyo dadka UN-ka كان waxa u jeedaa shacbiga Soomaaliyeed ورا magaca daayna ya akhay halkan waxa u jeedaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo UN oo isdagaalsan oo dhagax. We say again, please go home and let Somalis sort out their own problems. I think we are reasonable enough to sit down after 3 years of bitter warfare to trash out our differences. halkaana waxa u jeedaa gurigii gudoomiyaha Colonel Ahmed Umar Jas oo gurigiisa lagu maxbuusay oo la ogoleen inuu ka soo baxo. dadweynihii shacbiga Soomaaliga ah oo iyagana isugu yimaadeen meeshan oo ay diidan yihiin yani waxa ay ku hayaan. I appeal to all peace-loving people and organizations to send an investigation team to Somalia and to remove those blue beret suckers. Such a peace-loving people and organizations will have the confidence and trust of all the factions so that real peace could be brokered in Somalia. A stitch in time saves a nation. أمر الله صادرنا إيك مريكن بس صادري تركيا صادري شيء عندنا واحد وجد تانك ياشي UN ورا هاي ردين أخترتي تانك ياشي UN دونا يناس كتاعن مركي ددويني هي كسر الجنسية تاسو كتوسس ددوينها الصومالي أنا جدًا جميسية نوع دونا هذا هاي واقع أساج ددويني الصومالي والله عيري اسكت بريانا كده بريانا